إن رنتي تستوركي لابد iyo 12 ilaa inta aan ku soo shaqeynayni waajibkiina saaray ahaa inaan maanta dib u eegis ku sameynayno oo aan gudanayno waajibkii aan dhowr baarlamaan oo soo maray aan u dhaaranay oo aanan waxba ka qaban inaan nasiib u yeelno baarlamaanka 12aad maanta inaan wax ka bedelno mudan gudoomiye qodobka xildhibaanada sharafta leh qodobka 7aad farqadiisa saddexaad nuqulkan ay noo keeneen walaalaheen cadaynaya xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliya waa xuduudihii ku asteysnaa dastuurkii 1960 dadkii dastuurkaas qoray maanta wax ka nool inay jiraan ma u malaynayo maxay maanka ku hayeen maskaxda maxay ku hayeen maxay jeclaayeen maxay hiigsanayeen wax la yiraahdo shanta Soomaaliya xuduudaha ay dastuurka ku qoreen waxa ku jirta jamhuuriyadda walaalaheen Djibouti waxa ku jirta North East waxa ku jirta kilinkan hadda maanta Soomaali galbeed kalinka shanaad loo yaqaano dhulkaas ku jira suurtagal ma aha inaan maanta kilinkii iyo deegaanadaas aan sheegnay asbaabahooda jamhuuriyaddii markaas jirtay ay u burburtay inaan maanta aan dabada sii hayno oo aan dhahno Djibouti aan Soomaali ka soo dhigaynaa oo xaquuq ku yeelanaysa dastuurkan كلن كشنا على حقوق ويالنا محوها ناش اللي راهدو النورد إيست يا حقوق ويالنا صحمة وحي أبويال كان مسكحة كوهايين وانقاري وينو احنا وانقارني جمهورية الصومالية أما الصوماليات وجمهورية دي لبدي قبل حرني ملغات haddii annaga maanta aan jahwareernayno annagoo soo taagan aan riyoonayno aan dastuurka ku qoranayno muxuu ahaa shantii Soomaaliya muxuu ahaa Djibouti ay kamid ahayd Soomaali galbeed kamid ahayd NFD ay kamid ahayd haddii aan dastuurka ku qoranayno annagoo saacadan waqtigan joogno 2024 wax runtii nagala sugayay inay ahaanaan qaba sidoo kale مدن قدومية قضب كالسدالات فرقديسة كواد وحوك الله يا صوماليا صوماليات وحي لمتها وأن تصالوك سوقالن كرا عربت جامعة عربت سعود عربية إمارات العرب كويت العرب أي لمت Soomaaliya waxa waaye jamhuuriyaddii isla qaadatay xorriyad labadii gobol Soomaaliyeed marka xagga naga joogto waxa kamid ah kalinka shanaad waxa kamid walaalaheen Djibouti waxa kamid ah muxuu ahaayeen North East halkaas naga joogaan waxa aan dastuurku u sameeynayna waa inay cadaataa inay tahay labadii gobol ee xorriyada qaatay 1960 oo fikirkii aan awiyaalkeen ay soo xambaarsanaayeen oo aan gaari waayni aan meel iska dhignaa waayo maalinta xuquuqdooda xataa ma ay helayeen maanta Djibouti xorriyad ka maqan mala waa jamhuuriyad iyadaba taageerto NFD sidoo kale dawladihii ay muxuu ahay la deganaayeen ay xuquuq ku yeesheen حقوقداس أي كويا شيء ولا سو هالجم إسكما إيمان ولا سو هالجم وحلا سو هالجموا وذي شيء ناو سو الجمهورية دي صوماليا أوبر برتدرادو مركا أنا هذا ما أنت أنسي صار سنانو وعن جمهورية دي أنا إمر والبوبر برتو والدولة درس كأنها عن عنفي سنعيب كسم يسنو أنا بصح وماركو قضب كالسجالات عاصمة وكهلايا ولا ليالو سبب مجرته
caasimadda loo raraa muxuu ahaay cutubka shanaad dad baa xaquuqdooda ku maqan tahay ayada ayaa xaquuqdeeda ku maqan tahay waxay tahay aan garan laanahay dadkeedii aan isdooran karin waxay ahayd isbarbardhig waaba samayseen oo waan arkay inaad ku dhiiratiin oo cutubkan aad ku soo dartiin afaraad haddana waa idinkula talinayaa inaad ku soo dartaan caasimaddu waa inay muxuu ahaay maalin walba waxaan dhahnaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray waa kii aan soo saari lahayn idinkaas soo qoray inaad ka reebtiin oo u reebtiin cutubka shanaad birina waxaad leedahay cutubka lixaad aan u xawil marka intii geedba geed aad ugu muxuu ahaay dabcan annaga shaki waxaan qabnaa in sababta loo reebay ay tahay dibadaabi kale oo caasimadda lagu sameeyay caasimadana gidigan waa wada simanahay waa caasimad Soomaaliyeed laakiin xaquuq baa ka maqan xaquuqdeeda iyo muxuu ahaay haybadeeda inaan cadeyno oo aan ku qorno oo waliba aan ka bilaawno iiday ahayd marka taasna tan caasimadan ka leeyahay walaalahayga gabdhaha Soomaaliyeed boqolkii 30 uu doodayo aniga hadii siinayo ma diidinin laakiin waxa idinka qurux badan idinka oo qaata nidaamka fiir aan lagu jimeeyeen ama waa gaawta ama waa dheeraata waxaan qabaa inaad isku jimeysiin sida gabdhaha Kenya ay u yeesheen muxuu ahaay women rep ay u yeesheen marka ugu horeysa 50 meel aad naga dhigatiin markaad 50 meel naga dhigatiin aad nala tartantiin oo aad musharaxiin noqotiin intii la dhiilahay gabdhaha Soomaaliyeed 30 loo xiray la dhiilahay tusaale ahaan hadda maanta boqolkii 30 ladiin sheegay 67 ka haysatiin labada aqal waxayna ahayd inaad 99 xildhibaan aad haysatiin 99 xildhibaan maanta waxaad ka haysiin 67 haddii maanta 50 xubnood intaad meel dhigatiin kadibna gabdho wiilalka qiimo badan ay jireen aad tartan gashiin waxaan qabaa inaad guuleysanaysiin oo boqol kor aad u dhaafaysiin laakiin haddii aad isku cabirtiin boqolkii 30 xogaa inayna fiicneen ayaan u malaynayaa ogaadana wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed markay isla tartamayaan idinka badanaa waxa la dhahaa gabadha si codka sababtoo wiilka waxa waa gabadha wiilka uu heelina la dhahaa inta badan Soomaalida dhaqankeeda gabdhaha waa ixtiraamaan waxa kale oo muhiim ah boqolkii 60 ummadda Soomaaliyeed gabdho waa haween waay mar haddaad idinka isdooranaynin waa nasiib darro idinku dhacday hala sameeyo commutation ama muxuu ahaay dhiirigelin gabdhaha inay iyaga ruuxooda ay u socodayaan boqolkii 60 markaad ka tihiin Soomaaliya oo aanan muxuu ahaay isdooranaynin idima helaysid kursigaaga waa dhumaya marka dhiirigelinta koow laga bilaabo horta markuu u horeysa gabdhaha Soomaaliyeed inay u soo hiiliyaan iyaga oo is doortaan aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.